وعذريه منيابوليس كدعي baa war xiisa badan kaga wada waa isaragii ugu ballaarnaa ee dhaxmar qurba joog u heelan ka wardoonka dhulkoogii hooyo iyo waliba xukuumadooda وكلن قرب joogta deegaanka ay si dhab u muujiyeen wadaniyadooda ayna kaliya laab soo dhaweeyeen xukuumadooda ku darso wuxuu ahaa kulankani mid qurba joogta u sii ifiyay heerka iyo halka uu taagan yahay deegaanka Soomaalida Itoobiya marweyne mooriha xukuumadda oo kaashanaysa shacabka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dhammaan qaabdhismeedka dawladda federaalka ciidanka qaranka ayaa waxay samaysay qorshe cilmiyeysan oo ay ku cadaayeen ama lagu cadeeyay daraasaad dhaba oo lagu sameeyay xaaladda deegaanka iyo dhammaan xalalkoodii oo tafatiran yoolka aan dhiganay oo ahaa waa in deegaanku uu noqdaa deegaan nabadgelyo ah dadka iyo hantidooduna ay nabad ku baxaan nabadna ku caanamaalaan si degdeg ahna meesha looga saaro nabadiidka uba iyo itixaad iyo maamulada dulsaarka ah si loo hirgeliyo horumar waara oo aasaasi ah إلهي
madaxweynaheena geesiga ilaahay inuu siiyo caafimaad wanaag ummadiisa inuu u shaqeeyo ilaahay waxaan ka barinay madaxweynaheena geesiga ee ummadeena u sameeyey wadacad u sameeyey taxriirtii u furay caafimaadkii u furay inuu ilaahay madaxweynaheena ilaahay dadkiisa inuu u shaqeeyo oo ummadiisa u shaqeeyaan ilaahay mayeeyo ilaahay waxaan u baryaynaa madaxweynaheena ummadda faraha badan uu u shaqeynhayo uu u dadaalhayay cadowgiisa allah cadowgiisa allah cadowgiisa allah madaxiisa allah raadi madaxiisa allah raadi isagoo nabada abuurnabada magaaladii jigjigaan iyo wadankii xukumahayo isagoo nabada allah ka celiyo isagoo nabada allah ka celiyo caafimaad allah siiyo ummadda uu shaqeynhayo shaqo fiican allah uga dhigo cadowgiisa allah qabto cadowgiisa allah qabto cadowgiisa allah qabto waxaa la socda niman sharaf waxaa la socda madaxweyne ku-xigeen yaa baa la socda dhammaantood waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwii barakaysan allah ka dhigo madaxweyneena allah inoo barakeeyo madaxweyneena allah barakeeyo kuwa la socda allah barakeeyo waxaan ilaahay ka baryayaa iyagoo nabada inay ku noqdaan ummaddakoodii nabadgelya allah ku geeyo subxaana rabbika subxaana rabbika Yeah.
wafdiga sare oo hogaaminaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo booqashada ku jooga dalka Mareykanka muddooyinka dambe ayaa waxay kulan la qaateen jaaliyadda deegaanka ka soo jeeda Minnesota ku dhaqana oo waayadanba ku mashquulsanaa qabanqaabada ay shir weynaha isku weerartaan dowladda iyo jaaliyaddu shirkan ballaaran oo lagu qabtay bartamaha magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayna ka soo qayb galeen jaaliyadda deegaanka ka soo jeeda oo tiro badan ayaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ka hadlay waxa uu sheegay in xukuumaddu bilowgiiba ay dejisay qorshayaal ay ku cadaayeen halka loo socdo geedigu halka uu ku dhaxayo iyo waliba raaska la rabo in lagu hubsado nolosha shacabka deegaanka haddii ay noqon lahayd amniga adeegyada asaasiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha sidaa la soo tigay dalkeena Itoobiya waxaa soo maray dowlado iyo maamullo boqortooyo ah kuwaasoo dhammaantood guud ahaan dalkeena soo mariyay dhibaato ay ku xaqiri jireen dhammaan xuquuqaha qowmiyadaha dalkeena iyo deegaankeena oo ay u adeegsan jireen xiriir bulshadin oo aan marnaba ka hirgelin wax horumara 1983 tirsiga waddankeena waxaa mina dhalay halgankii shacabka Itoobiya ee ay majaraha u hayeen ururka EPRDF 17 sano kadib waxaa dalkeena ka dhashay dimuqraadiyad waxaana markii ugu horeysay taariikhda Itoobiya aan hanay dastuur lagu xaqiijiyay dhammaan xuquuqaha qowmiyadaha iyo midka shakhsinimada marweyn iyo mudanayaal 883 shacabka deegaanka waxaa ka muuqatay diif iyo hagardaamooyin ay u geysteen dowladahaas siiba dadkii ka soo laabtay qaxootigii Soomaaliya ee xilligaas oo ka sugnaa xaalad aad u cakran oo u baahnaa inay ka faa'iideystaan fursadda daabiga ahayd ee meesha lagaga saaray saraakiishii ama dowladdii dalkiga ee horey ay uga baxeen waxaana fursaddaa lumiyey ubbo iyo al-itixaad iyo maamulada dulsaarka ahaa oo shacabkeena u geystay dil dhac kufsi isla mar ahaantana bahdil ku sameeyey jiritaanka iyo dadnimada shacabka dowladda ee Soomaalida waxay hor istaageen dhammaan horumarkii asaasiga ah iyo kii kaabayaasha dhaqaalaha ee saldhigga u ahaa bini'aadamnimada waxay shacabkeena qadeen nabadgelyo darro ayna degmo u gudbi karin waxaase muhiim oo u baahan in hoosta laga xariiqo dowladda federaalka Itoobiya iyo ciidanka qaranka oo hal iyo habeenba ku jiray halgan ilaa iyo nafurisa oo ay u galeen sidii dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya u gaari lahayd horumar waara waxaana xusid mudan in ra'iisul wasaarihii hore mudane Malla Zeenaawi sameeyay qorshayaal horumarineed nabadgelyo maamul suuban si loo gaaro nabadgelyo iyo horumar waara marweyn iyo mudanayaal xukuumadda oo kaashanaysa shacabka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dhammaan qaabdhismeedka dowladda federaalka ciidanka qaranka ayaa waxay samaysay qorshe cilmiyeysan oo ay ku cadaayeen ama lagu cadeeyay daraasaad dhaba oo lagu sameeyay xaaladda deegaanka iyo dhammaan xalalkoodii oo tafatiran yoolkiisuna uu ahaa yoolka aan dhiganay uu ahaa waa in deegaanku uu noqdaa deegaan nabadgelyo ah dadka iyo hantidooduna ay nabad ku baxaan nabadna ku caanamaalaan si degdeg ahna meesha looga saaro nabadiidka ubba iyo al-itixaad iyo maamulada dulsaarka ah si loo hirgeliyo horumar waara oo asaasiga sida baahida dhabta ah biyaha caafimaadka waxbarashada beeraha kaabayaasha dhaqaalaha samaynta sharciga xiriirka dadweynaha si ay maalqabeennada deegaanka iyo dalka iyo caalamka ay u maalgashadaan kadib waxay xukuumaddu bilowday fulinta qorshayaasha horumarineed iyo midka sugidda amniga oo isbarbar socda waxayna mar kasta si cilmiyeysan oo muwaadinnimo leh ama ay muwaadinnimo ku dheehantahay uga faa'iideysanayeen qorshayaasha taakulaynta ee horumarineed nabadgelyo inta awoodda garaadka siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo ururka ihadi haddaba si loo hirgeliyo qorshahaas nabadgelyo horumarineed waxay xukuumaddu samaysay tallaabooyin ay meesha kaga saarayso dhammaan calaamadihii xumaa iyo raadadkii nabadiidka sida manhajka dugsiyada dhexe hoose calankii iyo heestiisii magaca iyo calaamadda xukuumadda xeeroosaadka iyo calaamadda xisbiga oo dhammaantood loo habeeyey marweyn iyo mudanayaal waxay xukuumaddu si dhab ah u falisay go'aamadii iyo talooyinkii
horumarineed nabadgelyo ee ka soo baxay shirkii 23 bishii January 2011 ee ka dhacay isla howlkan waxa ay si buuxda u hirgelisay nabadgelyo la isku halayn karo shacabku wuxuu ku baxaa nabad wuxuuna ku soo galaa nabad markii meesha laga saaray nabadiidkii iyo nolodiidkii waxaa natiijooyin laga gaaray ururinta biyaha roobka waxaa la sameeyay 2500 oo baraagood iyo 430 biyo xidhanood sidoo kale waxaa muddadaas yar la sameeyay 410 daraasadood oo lagu ogaanayay biyaha dhulka hoostiisa ku jira waxaa muddadaas la sameeyay 410 daraasadood oo lagu ogaanayay biyaha dhulka hoostiisa ku jira waxaana lagu guuleystay in la qodo 212 ceel oo dhaadheer kuwaas oo laga qoday dhulkii ay biyo la'aanta ba'an darteed dadka iyo xoolahooduba ku dhimanayeen sidoo kale waxaa wabiyada dacalladooda la dejiyey 166,000 oo qoys ama inta badan 550,000 oo qof kuwaasoo la siiyey 8,253 matoor oo waraabka biyaha oo dalka dibaddiisa laga soo iibiyey taasoo wax soo saarka beeraha gaadhsiisay in markii ugu horreysay taariikhda ay xoolo-dhaqatadii bilowdo in ay wax beerato kadibna ay la soo go'do wax soo saar ka badan 6 milyan oo kintaal oo isugu jira galley qamadi sisin iyo noocyada kala gedsan ee khudaarta sidoo kale xukuumadda oo kaashanaysa taageerada federaalka waxay fulisay mashaariicda biyo-gelin dhuldaarsimeedka miyiga sida mashaariicda aad u waaweyn ee shabeelle 460 kilomitir oo isku wareega ayaa waxaa la geliyey tuubooyin dhulkooda ku jira waxaana loo yaqaanaa daarwan daartu iyo daartiri sidoo kale waxay fulintooda socdaan oo dhowaan soo gabagabaabi doona mashaariicda baaxadooda aad u weyn tahay ee mugweyn ilaa fiiq xamaro gasaankas 180 kilomitir laab beer caano ceel weyn dhanaan oo dhan 142 kilomitir toga jareer qabr bayan ilaa igleelay halka sheekha 120 kilomitir burqod gunagalo bal sareedo wargaarsan musnaray gabagabo farmado ilaa ayo marsin dano gaashaamo 300 kilomitir waxaa dhamaaday mashruuca weyn iyo biyo-xireenka goday oo loogu talagalay inuu waraabiyo 720,000 oo hektaar haatan ay dadku manaafacaadsadaan waxaa dhamaaday mashruuca weyn ee biyo-gelinta magaalada Jigjiga waxaa taariikhda markii ugu horreysay la sameeyey wadooyinka isku xidha fiiq qubi fiiq mayu xamaro tulagida oo si gaar ah u soo qaadayno maadaama ay ahaayeen meelaha dhibaatada badan ee ka jiraan waxaan doonayaa halkan hal tusaale oo soo qaato xamaro iyo waxa weeyaan lagida waxay isku jiraan 100 waxay isku jiraan 70 kilomitir ka yar balse laakiin waxaa laga soo wareegayay ilaa hadda 1,200 kilomitir oo goola iyo 1,200 yani magaalada xamaro waxaa u muuqata lagida leebkeedana waa laga arkaa balse laakiin waxaa ka tagaya xamaro inuu tago lagida waxay ku xiran tahay inuu 2,400 oo kilomitir soo wareego taas waxay noqonaysaa in maanta ay meesha ka baxdo haddaan soo qaata caafimaadka 678 rug caafimaad oo lagu talagalay midkiiba inuu adeeg siiyo 5,000 oo qof waxaa kor loo qaaday tirada guud ee dhakhaatiirta xirfadlayaasha caafimaadka iyo health extension workerska tusaale ahaan waxaa 5 sano ka hor aan haysanay 12 dhakhtar keliya muddo yar gudaheed waxaa la hawlgeliyey 7 dhakhtar kadib waxay xukuumaddu xoogga saartay kor u qaadida dhakhaatiirta waxay dowladdu ay jaamacadaha ku dartay iyadoo qarashkeeda bixinaysa 300 oo dhakhtar oo muddo yar oo soo qalin jebin doona taasoo ka dhigi doonta dhakhaatiirta u dhalatay deegaanka Soomaalida tiradooda 349 dhakhtar dhakhaatiirta wargeysan waa 5 sano ugu yaraan iyo 7 sano weyn ambalaasyadan haysan haddaan si tusaale soo qaato oo kooban 13 bay ahaayeen maanta waxaan haysanaa 113 ambalaas baa hawlgal waxaa si gaar ah loo fuliyey barnaamijka daweynta iyo qalitaanka indhaha waxaa daweyn iyo qalitaan indha la siiyey
oo indhihii loo furay 8,800 oo indhalaanaha ayaa indhihii loo furay barnaamijka oo keliya oo ku jirin dadka sida caadiga dhakhtarka u taga laakiin kuwani waxay ahayd kuwa danyarta ee aan dhakhtarka iman karaynin ee aan ehel lahayn ee aan dhakhtar iman karaynin in waxa weeye dhakhaatiirtii oo waxa weeye u dhalatay deegaanka iyo kuwa aan dibadaha uga yeernaba tiim la isku xidhay oo qalabkoodii wata machinery iyo manpower wata in daraasaad lagu sameeyo dadka danyarta meesha joogaan oo muddo 6 bilood ay duurka wareegayeen 8,800 oo qof oo indhala-aanana indhaha ay soo fureen ilaa haddana ay socoto haddaan soo qaata dhanka waxbarashada waxaa muddadaas lagu guulaystay in la sameeyo 819 iskuul oo dugsi waxaa ka mid ah 55 dugsi oo KG kuwa carruurta barbaarinta carruurta 679 dugsi oo dugsiga dhaxaa koobaad ilaa 8 102 dugsi sare 8 kuleeyo oo 4 ka mid ay dawlad yihiin 4 ka midina gaar loo leeyahay 2 dugsi oo loogu talagalay dadka aqoonta ee waalidkooda nabadiidku ay dileen sidoo kale waxa ay xukuumaddu markii taariikhda dowladda Soomaaliya ugu horeysay abuurtay oo ay hawlgelisay dhammaan qaabdhismeedkii lafdhabarta u ahaa hirgelinta horumarka nabadgelyada maamulka suuban iyo shaqo abuurka oo hadda ka hor aan jirin aynaan lahayn waxaa la sameeyey shirkadda daraasaadka dabagalka iyo nashraynta oo ahmiyad ballaaran u leh horumarka guud iyo gaar ahaaneedba shirkadda dhismaha jireedka iyadoo lagu tiyey manpower iyo machinery iyo miisaaniyadda shirkadda dhismaha arrimaha biyaha shirkadda adeega iibka iyo dhismaha booliska wakaaladda anshax iyo kahortagga musuqa wakaaladda microfinansiga oo wax ka qabatay baahida danyarta wakaaladda horumarinta shirkadaha yaryar xafiiska cabashooyinka wakaaladda horumarinta abuurka xulka iyo calafka xoolaha taliska ciidanka booliska gaarka wakaaladda dabagalka cuntada iyo daaweynta in la dabagalo inay dhacday inayna dhicin oo la xaqiijiyo tayadooda waxaa loo sameeyey wakaalad ka shaqayso la yidhaha wakaaladda dabagalka cuntada iyo daawooyinka wakaaladda ilaalinta deegaanka xafiiska tababarka xirfadaha iyo farsamada xarunta xaqiijinta tayada xirfadlayaasha xarunta tababarada garsoorka hay-adda horumarinta Soomaalida Itoobiya si loo xaqiijiyo horumarineed ee magaalooyinka waxaa la sameeyey qaabdhismeed 4 maamul magaalo iyo 16 degmo waxaa dowladda Soomaaliya Itoobiya markii ugu horeysay laga hirgeliyey qaabdhismeed dowladeed oo ilaa heer tuulo u dhaadhacsan si dhaban uga howlgala waxaa si dhaba sharciga loogu soo dabaalay xadka deegaanka ee gelinta iyo bixinta dadka iyo baabuurta waxaa qaabdhismeedka dowladda Soomaaliya Itoobiya lagu soo daray taariikhda markii ugu horeysay maamul dhalinyaro oo caafimaad qaba waxaa markii ugu horeysay dowladda Soomaalida lagu qabtay shirkii qoomiyadaha ee Hidaar Hayaasday lagu qabtay xiriirka dadweynaha ilaa heer tuulo dhulka miyiga ah dadka ku nool goobtooda lagu tagay si looga soo tashado sidoo kale waxaan raadinay qurbajoogta u dhalatay deegaanka Soomaalida ee ku nool shanta qaarada dunida laguna tagay goobtooda si looga soo tashado dib u curashada oo markii ugu horeysay taariikhda gashay warbaahinta deegaanka ESTV Jijiga FM iyo SW2 oo hadda socota dhismayaasha aad u waaweyn ee muddada yar lagu dhisay sida jeerka iyo buundooyinka dhismayaasha waaweyn haddaan si kooban u soo dhigo marweyneynooya waxa ay xukuumaddu wax ka qabatay horumarka asaasiga kan kaabayaasha dhaqaalaha xiriirka dadweynaha arrimaha xisbiga nabadgelyada iyo amniga marweyneynooya haddaa intaa kaga baxo waxaan fariin u dirayaa hogaaminta UBO ee qurbaha joogta inay ku soo dhawaadaan xaqiiqada dhabta deegaanka Soomaalida Itoobiya waa nabad deegaanka Soomaalida Itoobiya waa nabad waxaa ka jira nabadgelyo saas la ajigeed waxaan idin fidinaynaa cafis inaad ka faa'iidaystaan cafiska oo sida ugu dhaafsaaban ku qaataan waxaan u fidinaynaa cafis waxaan naga gaarsiinaynaa cafiskii nabadan ay ku soo biiraan oo inta taageeraan waayo waxaan aaminsanahay
وأبنى هذا الشيء لكن لحظين أو تذكر عالم بوا فكر كلاش شيئا وطن ساس أجيل وحلنا كتنازل فكر كام أو تغيير لبدلية هربركا ما من الصوبة هذيك الرجال الله يماطو تديك يماطو وحوي ما تقام ستة وصوص وقال بيان سلوك الوحان أورك قبل كيسو دعي هلاقي وحوي برجيا جيبوا صلاتي يقين جدوكنا وشينا إن أنا مرضى به صورة جلا هاي صورة جلا يننا إن عاد دب سوء لسان ما ممكن درجيا إيوه حوي جيبوا صلات ربع إن مرة ذكي الشريعة حسوقيا مرة محاضرة خاصة حالنا وهل على جلسة إيوه كذي ما نصنع بكرة عليه مع العلم وحان مركوري مركو كوبادي مركو لواي مركو استعملوا مع العلم إلهي سوتقلي إن السنة سبول مع الله حان مع العلم إنت عندك سوتقلي وحان مع العلم ما قبقالياشا قدك قبقالة دليلنا هواينا وحقرتها لما أنت سوقالياشا شركة سلك سوتقلي إيوه هيدا أبلغ مينيابوليس وحاليا دمانتي والماسنتي وحان بلن قادينا إنان سي xoojino halgankaan ugu jirno cadaweyna koobaad ee labaad ee saddexaad oo ah saboolnimada inaan meesha ka saarno saboolnimada waxaan halkan habeenkii maalin u gelaynaa si aan saboolnimada oo cadaweyna koobaada uga saari lahayn isla markaana loo hirgelin lahaa horumarka asaasiga iyo kan kaabayaasha dhaqana waa maasantii salaamu calaykum
madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar ayaa sheegay in uu la dhacay taageerada iyo jacaylka jaaliyadda Minnesota ay u hayaan dowladooda iyo shacabkooda iyo sida hagar la'aanta ay u soo dhaweeyeen waftiga hogaaminaya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar iyo dhammaan guuda aan aniguna ka mid tahay la socda sidoo kale guddiga qabanqaabada ee muujiyey shaqada aadka u ballaaran ee wadaniyadu ku dheehan tahay sidoo kale shacabka qurba-joogta ah ee u dhashay deegaanka Soomaalida Itoobiya haweenka dhalinyarada aabbayaasha salaadiinta dhalinyarada iyaguna isku xil saaray xagga nabadgelyada ee guud ahaan intii aan joogtay magaalada Minnesota ka shaqaynayay waxaan jecelahay inaan si ballaaran idinku mahadceliyo intaa kadib caawa aniga shakhsiyan waxay ii tahay habeen qaali ah marka koowaad waa markii ugu horreysay ee qurba-joog intaan la eego deegaankii ka soo jeeda aan hortooda ka hadleen hor istaageen arko marka labaad waxay qiimo gaar ay igu leedahay anigoo la socda madaxweynihii dowladda deegaanka Soomaalida oo ka mid noqday fursadna u helay inaan anigoo madaxweyne ku-xigeenka oo ah wafdiga maanta halkan idinku soo booqday inaan ka mid noqdo sidoo kale waxaa shucuur gaar ay igu beeraysaa sida wanaagsan ee kalgacalka iyo jacaylka ballaaran muujinaysa ee madaxweynaha iyo wafdigiisa aad u soo dhaweyseen iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya wafdigiisa intaa kadib deegaanku wuxuu gaaray horumar ballaaran oo la taaban karo runta marka la sheego siduu wasiir xabiib soo sheegay 4 sano ee ugu dambeysay ee sanadkan 5 ku yahay ee madaxweynuhu uu hogaaminayay deegaanka Soomaalida Itoobiya anigu deegaanka waxaan ka soo maray xilal kala duwan gudoomiye degmaan ka soo maray oo markii koowaad halkii aan ku dhashay ka ahaa oo Shiniila oo markii labaad ka noqday degmada Goday oo taa ay keentay hogaamintii wanaagsaneed ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed iyadoo marka hore aad taqaanay ninka sida qabiilkiisa iyo reerkooda inuu xukumo iska dhex fadhiyo waxyaabaha aad ka dhawaajinaysaan waxaan marar kaga nahay markaan xilka hoose soo qabanaynay laftigeeda madaxweynuhu mas-uuliyiinta inta badan ninkii soo barbaariyey weeyaan degmo ku soo barbaariyey keenay inay qabyaalada ka baxaan uu ninku hogaamiyo meel wanan isagu adeeradii iyo naadariinta doorashada aad maqasheen anagu dadkii lagu furay baan ee lagu bilaabay doorashada in badan dadku ay maqleen laakiin anigu waxaan ahay dadkii lagu bilaabay anagu gudoomiyaha degmada Shiniila oo halkaan ku dhashay iska fadhiyo reerka iyagoo naqaano Soomaalida halkan joogtaan aqoonin madaxweynuhu ahaa ninkii iga bedelay gudoomiyaha degmada Goday iga dhigay Shiniila Goday isku jirto garanaysa markii hortaba gudoomiyaha degmada Goday baa tahay lagu yiri dad badan aan yeelanahay way naxeen xagu tagi waa la yaabay dadku isku dhex jiray marka waa marka runta idin sheegay dadka ka fadhiya sheegay waxa suuragal ah idinku inaad xoogaa qolqolad ka sheekaysaan qurban halka calada dhabtay ka jirtaan in sheegay anigoo halkan halkaan in sheegay cidaan aad garan kartaan gudoomiyaha degmada Goday baa lahaa adeerkay ma maamulin
إن هذا المعمول لكن هو دب إن هذا كيان معمول يقدرين تكمل هذا مكان حقيقة ليش يلو مدحوينها وايد حتى هذا ولا هو كل شيء له كل شيء يقدرين تكمل هاي مدحوينها إسكالها وضد في الدليل هذا إن قبيلة الدجاج بايك بعضه وقابلته وفن حزب جاي ومدحوينه وقابلته إذا كان إن ما أنت أنا أقول شخصيا عبد الحكيم أنا عن قبيل عن شيء يمكن أمضى مطلقة هذا وحكيني مدحوينه عبد المحمود شتى سنوات على الوقت الله صدق ومن هذا الضلال أنت لا شقيني لي أنت تقوي بتجملي وأنت لا شقيني وحق بيها عافمات وحبرشة بيرها يقول جبت المغشين إلا قولي كتير وعقل الله الله صدق وناس يا سلام أو حزبي أو بلارن سيدو كلا وحلوت الله صدق حق الاسمياش مقالوا يمكن نوات مغشين وأركين وقد كيبا خطوات قبل المقالوا يتديقان كان كيلا وحلقة في المستر بلان أو سيشر يا سيدتكم جدا كران sidoo kale waxa la sameeyay dugsiyada balaaran waa sii taabanaya wax badan oo la taaban karo intii halka fadhiinaad markatihiin annaga hadda xilalka kala duwan soo qabanay haddana xilka ugu sareeya ee madaxweynaha Allah inuu la joogina aan marakana iyada xaalku sidaa yahay haddana dhibaatooyinku way jiraan oo inaan annagi idinku intaan iskaashano gaarka jiraan wixii loo baahayo ay balaaran baa كما تقولنا هرم مركي لا باناي وحتى نشوفي وخلا هذا الجاري نيجا كده وأولي علو باهي تاجر بلادنا حكينا سيرو كلا عدو أو بدن باتشرا أو بلوكا مغرى وناكسر عن رالي كاي أو ديني كنوا تين أنغنا وعلو كل أركي وكامل ومدينو دمنايسا سيدا درادي وحدو كان عدو غيرو فرتريا meel kasta la nagu arkana oo aanan hay'ad wadankii lagu xareeyo wala isku qaatay laakiin annaga intan meesha ay joogto ay wadankiina intan iyaga badan oo shaqina sameeyana ma soo noqonayo taa inagii annaga ka wada maraga waxa kale oo jira kuwa inaga mila oo jecel inaan inagu san isku hortagin kuwa dawladdan anagu ka mid nahay ka mid ahaa waxay isku dayeen in la rogo wax walba anigu waxaan isku dayay cabdixakiin ahaan nimankaas inaan ka joogsada idhaahdo waayo waxa wanaagsan ay noo qabsoomay in la rogo ma aha in halka laga sii wada maayo in la rogo suuragal ma aha halgankuna gudiya dibadba uu yeelanaya xisbiga dhexdiisana uu yeelanaya xisbiga nina halgan ballaaran buu soo maray كلي واد مقاشي وقت دحرها حوران بدن يحرقوا صواب علي إن نبص أي نوسو قاعد عليك أبناء كودي قبلي تكتر سوا عايز كودين إن هرمر كان بلا ما هرس على الجلوس اليوم أو بنان كلا وصار عدو بمشي على ركاب بمرض مرض الله عيا مركوي نار إذا كان ينادرين ماذا بيننا ينادرين إن تبلغ وصار لكن دولة الفيدرال وطن وقاميسة حزب APRDF وقامينه هي دولة الفيدرال هي حزب وواحد كم من يسميه إن ديجان كم تبلغ عليه مرنا وهرق والله ورماي هذا ورعد بالوش إن ديجان كل يوم بدعوه كما تقولنا والبريكلين يعني جماعة هو الديمقراطية دستور بشري لكن مرنا وما أقولاني mana ogolaan doonto mana ogolaan jirin in deegaankan dib loo celiyo oo halkii uu ka soo kacay dib loogu celiyo xubnaha farakutiriska ay idiin sheegayna meel ayaan iska dhignay waana laga guulaystay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed iyo dowladda deegaanka soomaaliyeed oo cabdi maxamuud cumar madaxweyne uu yahay baa manjaraha oo haysa halkan in badan dadka waxaa ka soo yeedhaysa وقت دورة شيء على كذا مدحوينه هاس وكل تار ملايين مدحوينه عصري ولا شنطة سنة صوص على يشان كلام عصري ولا أنا أنا واحد بس عنا مدحوينه
anigoo madaxweyne ku-xigeenkii ahna guddi fulin ah gola dhaxana ah cabdicasiis oo guddi fulin ah gola dhaxana ah khadar oo guddi fulin ah gola dhaxana ah zubayr oo gola dhaxa ah nimanka la socda waa nimankii dowladda tiirarkayga ahaa waxaan halkan jecelahay anigoo intaa aan magacaya dhalay afkooga ku hadlaya in marka horeba idinkaana xakume inta dhulkii joogtiya idinkaana xakume madaxweynuhu 55 kalaba waxaan doonaya in halkan iga caddeeyo inuu hogaaminayo waayo dastuurka Itoobiya inteena cidii aan dooranay intiina halkan fadhida iyo inta yaran iyo madaxweynuhu waxaas ku raacdo ma madaxweyne noqon madaxweynaha 5 sano soo socda waa Mudane Cabdi Maxamuud Cumar annaga xisbi ahaan waasna idinkuna taageeradeedii baad muujiseen waa soo dhaweynaynaa go-aankeedana idinkaaba iska leh marka horeba shacabka iska leh cidda madaxweynaha noqonaysa shacabka dareenkiisa iska leh madaxweynaha xisbiguna dareenka shacabka ku shaqeeyaaye kuma shaqeeyo 2 qof 3 qof oo fadhi ku dirira oo meel fadhiisata oo shaqaysata kuma shaqeeyo xisbiga wuxuu ku shaqeeyaa shacabkiisu dhagaysto oo cidda uu shacabkiisu rabo madaxweyne annaga rabna ay madaxweynaha siyaha annaga rabna waayo inta yada isla socota ee hadii dhanka loo dhigo Soomaali madax qabiilo kala noqonayna laakiin qabiilad ma yihiin yaa qabiilad la iska saaray madaxweynaha ka saaray markaan u taagayso inta madaxweynaha joogo guddiga fulinta labada qabiil bay haysata ma dhacaysa sababtoo ah madaxweynuhu waa reer kasta oo deegaanka degan qabiil kasta oo deegaanka degan ayuu matalaa dabeecaddeedana uu leeyahay oo waan ognahay dareenkeedana uu leeyahay taana inaad qaabka u qaadataan waxaad caawa halkan ka muujiseen ee madaxweynaha iyo hogaaminta mustaqbalka ku saabsan si aad u muujiseen ayay tahay oon idin caddaynaya anigu shakhsiyan sidaa ay tahay baan idinku caddaynaynaa inay tahay waddankeennana fadhi ku dirir ma xukumo dadkii xukumay waa inta nin hor fadhida iyo intiina nabad fadhida bas xaqiiqadu waa sidaas weeyaan xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed maanta maalin uu ka adag yahay anigu waxaan ka mid ahay guddiga fulinta waxaan ka mid ahay 3 sano 3 sano maanta maalin uu ka adag yahay maarin xisbiga maanta ugu adag yahay 3 sano guddiga fulinta ka soo galay taasina waxay muujinaysaa hogaaminta marka ka sii dambaysa sii bislaanaysa sii adkaanaysa sii midoobaysa qabyaalada ka sii baxaysa ummadeeda oo sii dhaqanaysa horumarka oo sii guusanaysa dadkeegana sii midaynaysa iyo shacabkiisa marka ka dambeeya sii midoobaya sii ururaya taageerada la sii garab istaagaya isku dayaya inuu wixii bilaabay hore u sii socdo taana qaybtiina aad baan u mahadsantiin anagu aan ii soo jeedin lahaa xafladan oo loogu magac daray caana ka dhanaya ka soo qaybgalayaashu waxay ruuxayeen calaamada dalka iyo deegaanka waxayna ku faraxsanayeen inay soo dhaweeyaan dhageystaan warbixinta horumarka iyo nabadgelyada deegaanka ee sanooyinkii la soo dhaafay jaaliyada ayaa codka kale dhawaaqa heesaha iyo buraanbur intaba ku cabiraya inay kaliya laab soo dhaweynayaan waftiga iyo waxqabadka dawladda waxayna cadeeyeen inay hiiliyoob la garab joogaan dawladda sidii ay ugu guuleysan lahayd qorshayaasha birmadka u ah in wax laga bedelo nolosha shacabka deegaanka qabadku madaxweynuhu ka sheekeeyay iyo ka iman doona muuna istaahilay 5 sano soo socda inaan doorano soo ma istaahilo yes for 5 more years waxaan leenahay 5 sano soo socda deegaanka Soomaalida Itoobiya shacbiga Soomaalida Itoobiya salaam alaykum soodo ado damana soomahale ubangalo sida sabiya waaye basaaka lagu tuma soodo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام يا مدحوينها عبد عمر عليكم وحنا هانشر يقول كهوينك دليرة إكسبورتس كهدان جورجيا وحن أوبدلي كالقعد عن السنة قبل ذلك سنة كبيرة أفرط السنوات بني أوبدلي سنتك مركان عرفوا عرفت أقوى وحقوق رأيه بيها ورابين عيو وداولة يتيم بيتيجي وقتوية عبد يوم ليس ولد كذا حمل وكل صوت على ضرب وكل يوم يعني كان كان سومالي لو جسدي تركوا أنا قلت والبقول لكم بريا إسمي يقول الله أكبر وحكوا وحك سلام كذا ما بدك جالسة وحكوا فرسمعي بدك تقول ما قابلي هديتي أنو درتي مرودي من السلام كذبتي يومتي أديك يوم كمينتي ذا سومالي فيصل أنقول لي عبد وقتو بعيني هاي ولد هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاضية أرجوك Please be